شقيقي عاد بان ugu mahad celinayaa ku soo dhawo shaqeeyso بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مدحوينياشي talada dalkan soo maray duubabka dhaqanka runtii beesha mudulood oo meesha joogo siyaasiyiinta oo xildhibaanada labada aqalka sare iyo aqalka hoose reer Shabeelle gabdhaha runtii aan ogahay dadaalka ay ka geysteen dhalinyarada dhammaan halkan dadka qurba joogta oo aan runtii aan ogsoonahay inay jid dheer soo qaadeen si ay uga soo qayb galaan kulankan ayagana meediyaha iyo barbaarta gaashaaman iyo kulli waan wada salaamayna waan wada mahad celinayna intaa kadib runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa Chairman ayaan u ahaa guddigan laakiin ma ahayn ninkii suuro geliyey arrintan keligiis waxaa suuro geliyey dad isxilqaamay u istaagay beesha mudulood markay dareemeen in xanuun jiro xanuunkaasna daawadiisa lagama maarmaan tahay in ehelkiisa la isu keeno dadkii suuro geliyey oo gabdho iyo wiilal lahayba waa u mahad celinayaa runtii mar labaad iyo mar saddexaad mahadi ha ka gaarto bulshada noocyadeeda kala duwan ay ahaayeen siyaasiyiin saraakiil dhaqan aqoon-yahan haweenkii oo qaybeeda kala duwan intaba si guud ay uga qayb qaateen garabayna nagu siiyeen sidaas si lamid ah ma suuro gasheen haddii aysan aqbali lahayn dadka aan la wadaagnay ee meeshan maanta lagu akhriyey ay kow ka ahaayeen duubabka kuna xigeen madaxweynayaasha kuna xogeen intii aan soo marnay oo Ra'iisul Cali Maxamed Geedi ka mid ahaa oo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo ka mid ahaa oo ganacsatadii ay ka mid ahayd ay ka mid ahaayeen dhalinyaradii oo haweenku ka mid ahaa intaasba markaan soo marnay oo wadaadadii weliba jikooyinka culimmadana Sheekh Ismaan Xidigaan tagnay waxaan tagnay mawlid Sheekh Muxudiin Cali waxaan tagnay mawlid Sheekh Axmed Gaballe waxaan tagnay mawlid Sheekh Macalin Nuur kulligood baa intaas aan soo marnay waa inta talada mudulood wax kale maanta waqti dambaa la joogaa mudulood wax badanaa meeshaan laga yidhi mudulood oo amiis ogolow oo is-aqbal ama isdiid waa hawl adiga kuu taal mudulood ka systemka ku jira hadda iyo ka banaanka ka joogaba waa mudulood waana dad eheloo walaalo ah laakiin waxaa suuragal ah qof kastaba inuu si u fikiraa laga yaabo afkaarta la isku khilaafi karaa dembina maahan laakiin wax naga dhexeeyaa jiro jirka bini aadamka ah lugaha iyo gacmahan maxaa isu geeyo xabadkaana ka dhexeeyo xabadku waa mudulood soo saas maaha arree xabadkaa wada ilaashano taladan mudulood muddo badan ay soo socotay haddana waa soconaysaa annagu hadafkaynu wuxuu ahaa inaan gogoshan keenno dadkii isugu yeerno oo aan dhahno war waxa kugu dhacood og tahay oo hadday ahleed deegaanadaadii dhibaata haysato isteedadii waa ku qasan tahay shabeellada hoose niman ka socdaan noo mida maalin dhaweeday inay ooyaan ay ku sigtaan waxay yidhaahdeen 70% waxaan degnaa shabeellada hoose haddana waxay yidhahdeen waa nala mingooriyo hayaa xilalkii oo dhan waa nagala qaaday xildhibaanamadii waa nagala qaaday wasiiradii waa nagala qaaday waxa waaye waa nala eryay waa leeyihiin maxaa u sababa waxaa u sababa dadkoodan isku duubneen isku tijaah ahayn waa un kala dhuumanaya markaasaad mid bahbee socaa midna maalinta u socaya aan maalinta wada soconno intaa kadib annaga gogoshaan ma rabno cid in wax loogu dhimo waxaan leenahay cid kastoy meeshaani maanta timiday talada mudulooday wax ka leedahay talada muduloodna mid khudba siraa maaha waa mid dadka ka wada dhexayso daday leedahay odayaalay leedahay akhyaaray leedahay siyaasiyiinay leedahay haweenay leedahay dhalinyaray leedahay baasha qof jeebku uguma jirto waa waxaan wada leenahay marka aan waxayna wada difaacanno waxaa jirto la yidhaahdo mararka qaarkood aan sheegaa laba cunugoo ardayeedoo wada socotay oo guri ka soo wada toostay
ayaa midna hooyadii shilin soo siisaa la idhaahdaa midna waxba lama soo siin meel lax markaysay ugu ciyaarayeen ugu dheelaayeen bacaadkii shilinka ka dhuma mid soo u baaraya u raadaya shilinka u baadi goobaayay ayaa waqtigu ku dhammaada markii dambe wuxuu yidhi fasalka iskoolkiyaa la xiray mid adeero jidka marar adeer iskoolkii kala hadal maamulaha iskoolkiyaa nagala xiraya waa wadi maamuli u geeyey maamuli waa weydiye wuxuu yidhi warkaale warya intaa ku soo daahdeen markaasuu yidhi macallin shilin hooyaday soo siiso iga lumay aan baadi goobay or maanta o dhan bacaadkaas iga dhumaan raadinaayo waa garta adigana waryaxaa ku soo daahda macallin wuxuu yidhi shilinka u raadinaya anuguna maanta o dhan aan ku taagnaayo uri sawsan u helin shilinkaas aana ku taagnaayo uri marka anna saasaan ku soo daaha uri marka baadida waxaa la nimaa kula daday haye daalla kaa badane oo aanan doon inaad hesho daayin ebedkeede calaa kulli xaal waxa naga maqan waa wada taqaanin waxaynu u gafeenna waa ogsoontihiin waxa aan ka duulna ayaa waxay ahaaday waxa nagu dhacay waxaan u baahannahay midnimo mudullood waxaan u baahannahay inaan hore u soconno waxaan u baahannahay inaan ummadda wax la qaybsanno haddii kale waxaa la leeyahay maanto ay jiri jireen magay wax ma taro in yakun minkum 20 saabiruuna yaglibuu 200 uu yidhi 20 sabartaa waxay ka khayr badan tahay boqolaal aan sabrin 20 isku duubanaa waxay ka khayr badan tahay kumanaan isku duubnayn ilaahina wuxuu leeyahay wa adiicu llaha wa rasuulahu walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ilaahna dhahayo wuxuu leeyahay alla adeeca rasuulkana adeeca haye walaa tanaazacuu hadoodina haddaad doontaan fatafshaluu waad fashilmaysaan haddaad fashilmaysaan waxaa imaanaya watadhaba riixukum awooddiinaa kala tegayso soo saas maaha calaa kulli xaal haddaan doodno oo aan dagaalano awooddaynaa kala tegay awooddayna hadday kala tagtana dee waa nagala faa'iidaysanayaa marka deegaanna nooma fiyoobo dadna nooma fiyoobo annaguna ma fiyoobin saan u fiyoobaanno aan is-ogolaanno haddaanan is-ogolaanna oo haddaad sii jeesataba madaxweyne cali mahad hadda kor kelmada uu sheegaa mararka qaarkood shaqadaa markaad dhex gasho dad badan aad baraya ma ogtahay wuxuu yidhi hadda kooraa islaan ii timid oo yidhi oo beriga yunisomta wakiil ka eeda dhinaca waqooyi muqdisho waa ka sheekaysanay markaa calaa kulli xaal gabadha waxay tiri waxaa xafiiskayga soo maray tira maalin kasto 50 qofood ku dhowaad ayaa soo martay tiri mid kastana midkii ka horreeyey ow naclada yaa ku yimid hebel kaasa waxay tiri marka hal qof oo wanaagsan ma ii sheegi kartaa oo beeshan mudlood ka mid ah markaasuu baa wada wanaagsanta markaasay tiri warmaba taqaanida aqoonaa kugu mare waa aragtay allah ku gaartay markaa fahamto maxaa yeelaayo waa un dad iswada xaganayaana hebela xowyaha war adigu xaata is-ogow calaa kulli xaal mar rabnaa waqti ku dheeraado aad iyo aad aad mahadsantihiin annaga gogoshaana waxay ahayd muhiimaddeeda in mudullood midnimadiisa uu ka shaqeeyo meel inuu gaaro haddii aad meel gaarsiisiinna waa hawl noo wada taallo haddaad tidhaahdiin oo maaragtay looma baahnana idinka go'daa calaa kulli xaal intii aan soo wadnay qaaraan aan ku wadnay annagaa iska qaadayna jaabkayna waxaan ka qodayna $100 iyo $50 iyo qof kasta waxaystaan ka qaadayna intaan maanta ku soo gaarnay tan maanta halkaan aan ku dhignana hal ruuxuu nagu kaalmeeye ma jiryo annaga unbaa iska qaaraana intii isla socotay calaa kulli xaal haddii la sii socaayana idin taallaa haddii la hundhurtaayo hoos loo jeesaayana waa idinka kicin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoomiyahu waa mahadsan yahay haddii la sii wadaayo haddii la iska dhaafaa duubabkeer iyo duqodoor iyo waxaa joogta madaxdii oo dhan muga waa runtiis waxaan rabnaa haddana meelihiga gabagabada shirku noo soo gaaro marayaa waxaan u yeeraynaa xildhibaan cabdulqaadir qasable xildhibaanka weyne madaxweynena ka shagay haddana ma arabno soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مركوه رئيسو مدحوينياشي النهاري إمامك وقاسك يقاسد كلا وبرك هوينك سراكيشة سنترada iyo wasiirkeena arrimaha gudaha Hirshabeelle goboltooyada gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed sanatarada xildhibaanada dadkoo dhan waxaan rabaa inaad ku salaamo markuu horeyso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh war tiro badan iga buuxo laakiin waxaan isleeyahay maanta gogosheeda amaysan ahayn oo dib u dhigataa wax badan aan hadda la tilmaamay laakiin waxaan rabaa inaan gogosha ilaaliyo
saaxiibadeena soo dadaalay ka shaqaynayay in la isku yimaado la tashto ummaddan in la isku keeno mustaqbalkooda ay ka hadlaan dhibaatooyinkii waxyaabaha ay ka sheeganayaan ay iska warsadaan meel u wada jeestaan waa waxa aan dhammaanteen inta timid iyo in badan oo maqanba ay ku taamayaan oo ay rajaynayaan aniga waxaa la isoo istaajiyey inaan magaca xildhibaanada iyo senatarada iyo aan ku hadlo kuwa maqan kuwa xukuumadda ku jiro kuwa joogo dhammaantood magacoodan ku hadlaa waxaan ku faraxsannahay oon soo dhaweynaynaa oo boqolkiiba boqol ku faraxsannahay juhdiga walaalaheen ay bilaabeen hawsha ay qabteen oo bilaaw ah maanta meeshaan laga bilaabo waxaan rabnaa imaamka iyo ugaasyada inay inta kala wareegaan beesha ay dadkoo dhan tamaninayaan iyo akhyaartii intii waday iyo intii lagu daraba ay wadaan oo ay gaarsiiyaan ummaddaani meesha ay hamigooda yahay dhibaatooyinka iyo waxyaabaha ay isleeyihiin waxyaabaha ay leeyihiin ama uu dhib ka imaadaan ama ay ka sheeganayaan oo meel walba iyo degaan walba leh oo qaarkeen walaaleen ay ka hadleen inay maaragtay ay xalliyaan qof oo maanta reerkaani ama dadkaan meeshaan isugu yimid u dhashay oo kulankaani maanta ka xun ama diidan inuuna jirinan u malayna ama uuna jiri karin waxaa dhici karto in si dad wax isku tuseen ama ay si kale u akhriyeen laakiin waxaan rabaa inaan u sheego walaalaheena kii maqan iyo kii joogaba waxaan rabnaa haddaan nahay xildhibaanadii iyo wasiiradii inta xukuumaddeeda kugu jirtaba waxaan jecelnahay isku imaadkiina waxaan jecelnahay wadashadiina waxaan jecelnahay in meel loo wada jeesto waxaan jecelnahay in hala wada noqdo waxaan jecelnahay in ummaddaani aayaheeda ay ka taliso sida hore loo yidhi markay ayagu wanaag iyo isku imaashahooda ay keenaanne soomaali oo dhan ay gogol u yihiin oo ay meel weyn ay gaarsiin karaan marka aada u mahadsantihiin walaalahayna waa mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsantahay xildhibaan haddana microfonka waxaan kusoo dhaweynaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo dhow madaxweyne بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان ضدك ماشي كسوق قلي مدن مدحوين علي مهدي محمد إمامك دمان وقاسدة سنة الرضا حدبان نضا دمان تين هوين كين قبلين شرفت له الله الشعيب نورشين إن هالبولين نورشين أيوة أيهين ضلين يرضا دمان وإلي السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaa ka bacdi maanta sida loo sheego waa maalin weyn runtii muhiimadii ay lahaydna dadkii halkan soo istaagay xigmadda badnaa maxaan ku raadaay sidii Allah uu yiri iyo sidii aqliga saliimka ah ee dadku uu yiri intaba ka hadashay ayaa runtii si kooban oo qurux badan u sheegtay wax weyn oo ka dhiman ma jiraan maanta waa maalintii sida boardku uu tilmaamayo akhyaartii horena ay u tilmaantay culimadeennii karaamada sharafta lahayd waxa waaye waa maalin danaha dadkan meesha isugu yimid iyo inta ka maqan maalan danahooda maalintii ka hadlaayeen waay si ay danahooda uga hadlaan wixii ay u baahneedna ay u suubi lahaayeen waay dad inay wada hadlaan ee waxaa la yidhi wixii dhulka lagu guntaa garabka la saartaa haddii marka horeba la kala jeedo oo waxaad ayagoo la isku guntino la isku toosin qoryaha aad qaadda garabka saarto midna garabku kaa mudaa mid horey u dhacaa mid gadaalo u dhacaa midba meel u aadaa laakiin ayagoo isku xiran oo isku toosan garabka haddaad saarto safar dheeraad la geli kartaa waxaan rabaa marka dadkani maanta meesha isugu yimid waxay isugu yimaadeen inay culayska ay garabka saaran lahaayeen inay guntadaan oo dhulka asiga oo yaalla isku toosistaan markay isku toosistaan ay maxaan ku idhahdaa ay garabka saartaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo mudan in aad iyo aad loo tixgeliyo oo la dhageysto oo la waxeeyo intaa iyo salaanta aan idin salaamay ka bacdi waxaan rabaa oo fariintu waa qaamaa la yiriye muxuu ahay inaan iska gudbi ay tahay waxaa idin soo salaamay oo iga codsaday inaan idin soo gaarsiiyey salaantiisa madaxweyne shariif sheekh axmed oo
arrimaha qoys oo degdeg ah awgood u baxay laakiin inuu ka qayb galo shirkan uu yimaado goobjoogka aada ay ahayd laakiin duruufo ay u saamixi waayeen akhyaartii shirka qabanqaabinaysana siduu u sheegay anigana iga codsaday inaan salaantiisa idin soo gaarsiiyo iyo cudurdaarkiisa intaba ina wakiil ka noqdo marka waana ka ah marka intaas kadib maanta sida loo wada sheegay waa maalintaas waa maalintii midnimada waa maalintii sharafta waa maalintii nabadda iyo wanaagga lagu dardaarmayay oo la isfurayay si looga shaqeeyo wanaaggaas iyo nabaddaas waa maalintii marka in la iscafiyo in la is aamino in la is ixtiraamo inay ka bilaabato waay horta cid wax ay ka gaaraan ama hore uga soo gaareen ama u qabto inay cafiso waayo danta aakhira ku jirto danta adduunyadana waaba talaabta laga bilaabayo wanaaggeeda iyo quruxdeeda in qalbigaagu nadiif yahay oo aad walaalkaagii shalay ay wax idin kala gaareen ama qalbigiis wax ku galeen inaad cafisid hal la iscafiyo annaga intii oo dadka loogu dhibka badan yahay siyaasiyiinta ka mid ah siyaasiyiintana kuwa usii madax fiiqano anigu aan ka mid ahayaa ka mid ah laanna ma aha dadku uma qaadanayo ama uma haysto dadku inayna necab yihiin ama anugu inaan xunnahay waxawaaye meeshii wax laysaga sheegayaan nimiday anoo 50 sano cimrigayga kor u dhaafayaan yaan madaxweyne noqday dalkaan madaxweyne ka noqday 50kaasna waa soo noolaay waa joogay wiilkii dhalinyarada fiicnaay macallinkii fiicnaay muxuu ahaa murabbigii ama tarbiyayihii fiicnaay maxaan ku rahaa ninkii bulshada rayidka iyo xuquuqda aadanaha iyo dadka sabafarkooda ka shaqo fiicnaayaan soo ahaa maalintaan meesha imido waa maalinta ay muxuu ahaay sheegidda iyo marka waxaasi marka dhib ma laha waxaa la yidhi aarangeelnimaan lahayn kuma durduriyaa la yidhi haddaadan dad muxuu ahay aadan lahayn qof wax kaa sheegta arkimaysa laakiin sidoo kalena in badan oo dadka oo waxaan u taagannahay iyo waxaan qabanay waxaan aaminsannahay wanaaggeena sheegayeyna way badanta marka annaga sidaas meeshaasaan taagannahay dadka intii wax naga sheegtay oo hore nooga sheegtay ama hadda naga sheegaysana horena waa u cafinay maantana waxaa rabaa markale inaa waa cafi iyo saamax lianna waxaasi shalay dhaceen shalayna waa door marna waa iga maqashana u malaynaya shalay lugtay kaaga xiran tahay ma soco kartid haddaadan iska gooynin shalay inaad iska furtaa loo baahan yahay si aad berri maantaad joogtaa berri awsada adduunyada waa 3 maalmood waa shalay oo lasoo dhaafay oo kaa tagtay kuma soo noqonayso waayo aragnimo iyo khibrad iyo maxaa la qalday oo maanta laga leexanaya iyo maxaa la sameeyo qurxanaadoo la toosinayaa intaasay leedahay shalay maanta oo la joogana waxay leedahay diyaar garoow wixii shalay qurxoonaado lasoo qabtana lasii xoojiyo loola diyaar garooba berri haddana in laga sii raayo oo laga sii xoojiyo la qurxiyo marka haddii aad shalay joogtid maanta adoo jooga haddaad shalay ka hadasho meeshaad berri ka hadleedo haddaad shalay ka hadasho berridiina shalay noqonay berri dambana shalay noqonay maalin walbana shalay noqonay meeshaad yaad joogay waxyaabaha oo dhibka oo nahaystay ka mid tahay marka waxaan aniga taladeedu waxay tahay shalay waxaan ka baranno meeshii aan ku kufna aan ogaano walaalkii aan wax isgaarsiina aan ogaano kii aan muxuu wax isla qabanna aan ogaano wixii noo qabsoomay aan qiimayno aan ku darno wax kale wixii naga xumaaday asbaabtay nooga xumaadeen ama noogu qabsoomi waayeen aan ogaano aan ayadana muxuu ahay ansaxno laakiin shalay aanan joogin dad badan oo mas-uuliyiin ah oo ummadda mas-uuliyiin u ah ama xag siyaasadeed mas-uuliyiin u ah ama xag dhaqan mas-uuliyiin u ah waxaad arkaysaa wax kale kama hadlaan shalay ka hadlaan le waa sababta weyn oo wax badan ay noogu qabsoomi laayihiin laanna wixii markaan qaba lahaynbo wixii shalay dhacayoo tegaya ku mashquulsannahay waa tageen waa dhammaatay soo noqonayso maanta waxay tahay inaan ku mashquulno wax maanta joogo wax soo socda inaan u diyaar garoobo marka ninkii shalay ku mashquulsan beriyaa dhaafay berida baa dhaafay ma horumaraayo kor u kacayo ma dheeraanayo meeshiisuu joogaa sunnada noloshan waxaa ka mid ah wax hadday dhashaan ama waa koraan ama waa dhintaan haddaan la korin wax walbanay sax ku tahay qofka bini aadamka geedka xoolaha saxay ku tahay siyaasadda iyo dhaqanka suuban iyo maxaan ku raha dadnimadana saxay ku tahay haddaan meeshii joogaan maalin walba meel kasii qurxoon in la sii dejiyo wax kasii qurxoon in la sameeyo wax in lagu sii daro
haddaanan laga fikirin oo ama inta la iscajibiye la yiraahdo waa fiican tahay bas waa joognaa meesha ugu fiicnay amaba muxuu ahay shalay horta waxaas maxay u qaldamaan iyo hebel muxuu xaq uga laabtay muxuu ahay heesta u qaadi waayey aan isdhahno ma korayno haddaan kori weynana waa waxyaabaha oo muxuu ahay na haysto mashaakilaadkeena qaarkeeda ka mid tahay maanta marka maalintii wax layska sheegaayey lays haydaarinayey ama la waxaynaayey ma aha waa maalintii maslaxadda iyo ummadda meesha isugu timiday iyo inta ay matalaysahay danahooda iyo waxa ay u baahan yihiin inay qabsadaan ay aadaa looga wada hadlay marka waxaan rabaa qodobkaas meesha inuu gudbo waxaan rabaa inuu kusoo gabagabay shiribka caamka ahaayo ahaa qoomkii isquursadaa qoom kaloo qoryaha u gura annaga marka aan ka nimaado taas ilmo adeer isma inda buuxisi iyo kan iyo inta laga yimaado marka annaga aan ka nimaado meeshaas walaalkaa hoostaada ha ka dayin gadaashaada ha ka dayin garabkaaga ka day kaasho wax u sheeg midka dad isku xitaanood muxuu ahaye qaraabada iyo ehelka aad tihiin midka soomaaliyeed ee dalka iyo diinta iyo soomaalinimada idinka dhexaysa intaba waa walaalka laakiin waa la faruu si isugu xigaan ayaa la isugu xiraa la yidhi waa la sii kala qofna intaas marka meesha uga baxaan waxaan rabaa intaa kadib markaan leeyahay ha la isku nuglaado oo ha la isku muxuu ahay jiraan macnaheedu ma aha waxa xun in raalli la isaga noqdo ma aha waxa xun walaalnimada ma dhowraan haddaad waxa xun ninkan waa walaalkaa saad yeeli inta tira aad ka gabato oo ninkan waa siyaasigaagiiyo saad yeeli aad tira aad ka gabato oo ninkan waa duubkaagiiyo saad yeeli aad ka gabato oo waxa uu afcaasha qofkaas uu ku jiraa ama nidaamkiisaba uuna qurxoonayn xaq waxaa u leedahay inaad la hadashto tiraadid waa waanadu ma aha idaacadaha in layskala hadlo ma aha waanadu ma aha in meelaha laysku haydaariyo oo lays caayo oo lays aflagaadeey maaha walaalka inta loo yimaado in hoos loola warrabo leedaha sidaana amay sidaan ka fiican tahay xaq aad leedahay waaye ogaaw xaq aad leedahay waaye inaad fikirkaaga cabirtid waa lagaa qancinaa sida aad boodid ma aha lagu dhahaa ama waa in la qaataa waxaana taas daliil u ah diinteena islaamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay muxuu yiri huwa ilaa waxyu yuuxa laakiin haddana inuu bashar bini aadan ahayna waa intaasoo aayadooda loogu sheegay inta loo yimaado yaa rasuulallahi warkaan aad sheegtay waxyi miyaa mise ra'yi waayo dhahay ra'yi waayo markuu dhahay waxaa leeyahay kan ka warranaa dhahay midaa la dhinac dhigay kii la dhinac dhigowna qaatay kiisi inta ka tegay marka qofaan ra'yigeeda bas waxay ku xiran tahay qaabka ra'yigaaga aad qofka u bandhigaysa tuugii muxuu ahay kii kale caadaqaatihii xagga kallaabtihii muxuu ahay magaciisii hadday noqoto caqli celina ma aha waanana ma aha waa fitno bilowgeed waay fitno iyo dadka kala qaybin iyo balaayo samayn waayo laakiin gurigiisu ugu tag maanta hadduu qofka aad rabto inaad u caqli celiso u caraysan yahay oo si uu mushkil haysta aragta xataa ka haar iska soo dhaaf maalintaas iska salaan soo noqdo iska soo tag maalin uu faraxsan yahay uu degan yahay u sheeg dheh sidaan ama sidaan dhaanta marka walaalayaal sida dadnimadu ay ku jirto oo isku duubnidu ay ku jirto waa sidaas intaas ka bacdi waxaan leeyahay marka dadkan magaalada muqdisho degan waxay xaq u leeyihiin waxaa qof kastoo soomaali oo kale xaq u leeyahay ka badan qofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay wax xaq ka badan aan leenahay inay dadka qaarkiis waa kelmad laakiin ma aha inay yiraahdaan waxay xaq u leeyihiin qof kastoo soomaali xaq u leeyahay dalka soomaaliya nidaamka federaalka uu qaatay nidaamka federaalka ma aha taytalada iyo meelaha iyo geographical meelaha waxay maxay tahay dadku in ay ayagu ayooda ka tashadaan nidaamkaas dadku in ay ayagu isxukumaan مسؤوليته قفك يقولي بنيان قفك كقاضيان كل نظام جري إني أقول ديبتان هو قاضان قفك مسؤول ديبتان هذول شرعي هو قفل شرعي كم وين إلا طبطه هذه لوقا العوائر مدة لها وقت جيس إلا السوق وقت الله ماذا يلا دورت مركو دمال متكلم كفي عن صوت دور أحباب محوا هاي هو حين في رسالك دور الشداد وأنجارست هذا عاطفة يا مالنا هذا أنتوا بدل مالنا وترافق قبواي مالنا محوا هاي إنتان محوا وحدهم تي أنا دبعتي سنة وحيوة مال ما
qofka mas'uulka ah ee dhaqan ahaan mas'uulka ah ee siyaasad ahaan mas'uulka ah maalmihiisu waa badan yihiin waana dheer yihiin adar muxudiin waa isoo fiirinaya waxaan u malaynayaa waqtigeyga caara marka dadkan 3 milyan iyo ziyaadada lagu tilmaamay ee magaalada muqdisho degan ee Soomaaliyeed xaqay leeyihiin dhexdoodan Soomaaliyana xaqay ku leeyihiin oo muhiim ah waliba laana dal magaaladan dadka ku nool halbowlaha dawladnimada Soomaaliya qofka hadii halbowlaha laga gooyo inuu noolaanaya halbowlaha dawladda Soomaaliya maanta jirta ee soo jirtay waa sidaas oo soo ahaa maalintii dawladnimada Soomaaliyeed ay burburtay ee hal soo cili dadaalkii ay loo istaagay odayaasheenna ay u istaageen ilaa maanta dhibaatooyin iyo duruufo gaar ah iyo waxa iska soo qaabileen ah ku dhex jireen laakiin sidaas ah dawladda maanta taag iyo midii ka horeysay midii ka sii horeysay dhan sidoo ahay waay maxay saas u yihiin ay dad kale uga duwan yihiin dawladdu waxay ku nooshahay waxa waaye cashuurta ay bixiyaan suurtagal ma aha maanta ma suuroobin dalkoo dhan inta cashuurta laga soo ururiyo dawladda in cashuurta lagu raaco ma suurtagal dadka muqdisho iyo intii kale ay gaaraan oo cashuura badeecadahooda iyo waxooda ay gaaraan ayaa cashuurta dawladdan bixiso boqolaad ma aha qaaraan yaroo 10,000 iyo 20,000 iyo 100,000 ma aha boqolaal milyan oo dollar raalli ku yihiin maalin ayagoo mudaaharaadayo jidka taagan oo cashuurta diidan lama arkin waxay daliil u tahay dadkaani inay dawladnimada macno weyn u fadhiyo waa la ogyahay taariikhiyan Soomaaliya markay burburtay odayaasheenii qaarkood waa dhintay Allah naxariista qaarna maanta meeshaan fadhiyaan inay buraashada inta biyo ku shubteen Soomaali inay doonaan ayadoo Soomaali kala irdhowdo oo la isu galin oo cadaawadi dhacday oo la isdilay oo la kala irdhoobay inay baxaan ay dadkii wax sheegay guriyahooda uga daba tagaan idaan raalli ahaa aan soo noqon waa dawlad aan samaysan dadkaani waa dadkaas dadnimo wanaagay ka ahayd doqonnimana kama ahayn garasho wanaag iyo xilkasnimo ummadeeday ka ahayd kama ahayn muxuu ahaa magaciisa welina waxa ka muuqda intii xambaarsan yihiin weli inay Soomaali maalin dadkan inta tashadeen sida inta isu yimaadeen Soomaalida meel hebel degan ama reer hebel meel hebel degan aan ku duulno weligood kuma tashan taariikhda waa la ogyahay waa qoran maalin maalmaha kamid ah waa la ogyahay dadkan magaalada Muqdisho dalka meel kamid ah dhibaato ka jirta oo maxaan ku yiraahdaa masiibooyin ka dhaceen hadii la yiraahdo inay guryahooda iyo maxaan ku yiraahdaa jabado inta ku noqdaan lacag soo daraanay biyo xamar laga qaaday dad Soomaaliyeed oo meel kale oo aad u fog ku ooman hadda koor in loo geey anaga taagnayno joogo booyada biyo oo xamar biyo looga shubay dad Soomaaliyeed oo muxuu ahaa meel ku dhibaataysan abaaraysan in loo geey idaacadaha ugu horeeyay saxaafadda dalkan ugu horeeyay bulshada rayidkan ah habeen intaan fadhiisanay idaacadii hadda waaba iska waxaysatay Hoon Afrika idaacada la dhihi jiray intaan fariisanay on qaaran aruun u gal culamaa diinki iyo bulshada rayidkeed iyo baadi tacliinta iyo wixii dal iyo dibad Soomaali wixii joogo dhan lacagta habeenka la aruuriyay 3 saacadood oo idaacada fadhina xisaab malayn dadka magaaladan degan oo ganacsi ku haysto oo Soomaaliyeed ayaa lacagtaas muxuu ahaa badankeedana bixiyay iyo dibadda dadka Soomaaliyeed wanaag hadii loo horseedo wanaaga ugu weyn waa kelmadda fiican walaalow waay waa ku dila waa ku jibina qortaanka waxayna iyo Machiavellism waxa la yiraahdo Machiavelli nin la dhihi jiray oo book The Princess ira qoray wuxuu dhahaa waxa meesha aad u socoto ayaa waxay saamaxaysaa waxa ka sokeeyo dhan saa ula dhaqmaysid meesha saa ku taliso meesha u socotid hadii ilmo yar iyo haween iyo dad maxaan ku yiraahdaa dhibaataysan ay joogan si dardar meeshaas inaad gaartid laga rabo had dhimanin dhaxda ka soo noqon ilmaha dardar haweenka dhinac u tuur waayeelka muxuu ah qoorta ka sii qabo bas meeshii tag dhaqan fiican ma aha meel u sax ku yahay islaamnimada sax ku dawladnimada rabaa sidaas daraadeed dadka dawladda loo noqon lahaayaan mid qoorta u istaagay midaan caqdad galiyay midaan xaqiisa dulmiyay midaan ma dhacayso waxaan leenahay siyaasaddu wanaaga iyo dawladnimada dalka ka shaqeysa taasana ka shaqeyna walaalayaal mar kale أنا أدعو على ضدك مجال المشترك وحق ليه ضدك الصومالي وحي حلال حق ليه ويشان إن أيجو إيش حكومان إن أيجو تشادان إن أيجو محو هاي أيجو ضد قف حكومة إن يجو أنكسو جارا وحي ربين
iyo qaanuunka iyo xeerka ay degsadeen inuu ku xukumo oo ku horkaco hadduu ku horkici waayo maalintiisii ay la sugaan ha dhammaysto maalinta waqtigiisa dhammaado mid kaloo kaas inuu ka fiican yahay ay ku tuunsan inay doortaan dad badanaa akhyaartaan meesha fadhiday akaar kaloo fara badan ah marar badan aniga su-aal i weydiiso oy tiraaniyo adiga madaxweynaha soo ee dalkan waa joogtay magaalada hadda dadkeeda halla waxay ad leedahay xaad u waxay weyda adiga fulay xafiis ma moogaadiyo marka maanan moogeyn mana liidaynin mana waxaynaynin laakiin nidaamka maamul samaynta iyo baahid soomaaliya dhibaatooyinka haysto waxaa kamid ah sida isu xukumi dhib wuxuu ka taagan yahay soomaali siday isu xukumi lahayd oo dowlad u noqon lahayd annaga dowladnimadaasaa naloo dhiibay waa bilownay waa soo sameynay intii aanan inta soo gaarin ayay naga dhammaatay waqtiga naga dhammaatay halhayska caamka ahay oo dad badan ay ciladeeyeen oo qabyo ahay qabyadii maamulka magaalada muqdisho qabyadii ka mid ahay haddii fursadna la siin lahayd wax ugu horreeya ka bilownay ayuu noqon lahay waana u taagannahay ilaa maanta dowladda joogtana waa ku dhiirigelinaynaa dadkan waa ku dhiirigelinaynaa inay istaagaan ayuu istaagaan ma shiri kartiin isuma tegi kartiin maamul ma dhisa kartiin ta'ayina kama tasha kartiin meel ay ku bannaan tahay dastuurkana ma qabo diinta islaamka ma qabto dadnimadana ma qabo waa isu timaadeen maanta waa isu timaadeen waa joogtiin magacaas wada tashiga aad ku joogtiin qof kasta oo adinka idinka mida waa muxtarim shirkaanuu wax ku leeyahay odayaasheenii sharafta badnaayo oo imaamku hogaaminaya waa noo joogaan waxaan rabnaa dadkaani inay inta tashadaan ay danahooda ka tashadaan dowladnimadana xaq waajibay ku tahay horumarinteeda inay ka tashadaan laakiin haddaad ogolaatid maalin maalmaha ka mid ah in lagu abuse gareeyo oo si xun lagu isticmaalo oo lagu gardaro oo aad tiraahdo walaalo iga dhaaf oo maalin kale haddana walaalo iga dhaaf aad tiraahdo in la sii aqbala maaha leanna gardaraysigaas weliga oo kugu socona haddii kale dadkan dulqaad aad iyo aad u badan ay muujiyeen waana ku ammaanaynaa waana kusii dhiirigelinaynaa weli dulqaadka inay qaataan ay ilaaliyaan laakiin ma ku dhiirinayno inay ka tanasulaan xuquuqda ay leeyihiin ma ku dhiirigelinayno xaqa ay leeyihiin oo soomaaliya oo dhan ay heshay yes waa run wax badan waa naga qabyo dowladnimada waa naga qabyo midda federaalka waa naga qabyo maamulada waa noo dhiman yihiin xukunkii xamar laga qaado oo meeshaa la geeyey in hoos loo sii daadejiyay rabay ma sii daadegin waxaasoo dhan waa qabnaa laakiin macnaheedu ma aha waxbaa naga maqana meelaan fadhiisanaynaa waa sugana cidi uma maqna ceel uma qodnadii la dhihi jira waaye danihiina adinkaa u taagan maantaad fursaddii haysataan waa isu timaadeen wada tashi aad isugu timaadeen war intaad tashataan waxa wanaagga ah adinka idin wanaagga ah soomaalidan u wanaagga ah ka taliya wax kastoo wanaagsan ood ku tashataan soomaaliyana wanaagay u yihiin tashada go-aanna gaara danta ummaddan iyo degaankan waxay ku jirto go-aan ka gaara cid diidi karta cid ka hor imaan karta ma laha annaguna qaarkeed siyaasiyiinta qaarkood ama kuwii hore ama kuwa maanta jooga waa laga yaabaa inayna jeclaanin oo ama dana gaargaara ama ra'yi gaara qabeen iyo waxaas inay ka hormaan laakiin waxaas wax oo saamix le ma ahan marka waxaan rabaa mar kale iyo mar kale waxaan u mahad celinayaa dadka ka soo shaqeeyay hawshaan ayagu isxil qaaday aan muxuu ahaaye qaaraan ha naloo soo aruuriyo annaga ayagoo dhaha anan maqal masaladaasaa wadnaaye maxay kula tahay qof walba fadhigeeda dadkii hadda la tirinayo o dhan fadhigooda ugu tegay wiilkaygii dhallinyarada ahaa ee halkan ka hadla warkiisa sax u ahaa hal meelaan la karaba inaan u sheego siyaasadda inta hadda maanta qaraabanimo iyo tolnimo iyo loo fadhiya laakiin waxaan rabaa inaan isheeg siyaasadda la isma siiyo ayadoo hadiyaha oo lagu wado baaka qorxo ku jirto gurigaaga lagugu keeni maayo inaad doonatiday u baahan tahay waa mahadsantihiin siyaasadda inaad doonatiday u baahan tahay inaad doonatidna shuruuday leedahay shuruudaheeda waxaa ka mid ah waxa maanta oo dhan meeshaan laga dhahayo ah midnimo la dhahayo shuruuddeeda koowaad waa
تنكو حتى واحس احترام وأودينا أودي كدكتة وسياسي كدكتة وقبل قبل ونحسن هيدينها ونكين محمد أبوان كأفكار تحرية محمد رمانتا بربارتو مجلس هلكا وركي كلا هاي المحور قرط بدنا يوضع ورقف والبدور كيس مقام كيس المجتمع وكل عليه إنه احترامه واحد وحالو احترامه أنت وراح أو ضد كسر جد وكسر معنا ما أنت ضد وكسر جد وسمينا ما أنت أسكنت على خبرنا والله شيء والله عقل عنا والله واننا مدلو لو قبل ما ودي دي سايرنا أنت اللي رجولين اللي قالوا نقبل وين كي يبغى حلاها قال يلا ضدك أيقا وبدن ويل يقبل بهدينيه أيقا وحوق بدن دور مرة هرب وضعي مقالة عاصمة الجمهورية قروح البنات محمد دائما كي إنديا أوشن كلو أقول جري أمن جيدي يدقنا شيء العالم كله وفاني جري مركي لا يستدري دما وحكويا لا يا محمد دكويا لا يارد oday waayeel oo 80 jir ah iyo ayeeye 90 jir ah oo qorobka suuqa saaran magaalada Muddo magaaladan waxa dudumi waa dhalinyaro xooggoodi haddana waxay sugaysaa inay dhisaan waa dhalinyaro dhalinyarada waxaan leeyahay war ha kala qobnaanina oo ha kala kooxaysnaanina isu imaada ee fikir caama curiya kaas ku shaqeeya la idinma diidi karo siyaasadda midna waa qaadanaysin midda kalena meesha adigu aad rabtiinay mareen laakiin hadda guriga hadda anagu muxuu dhalinyarada siyaasadda looma ogola hadda guriga ka jira oo gabadhu ay muxuu ahay canjeeradeeda ayuu dubanaysa anaga gabdhaana ayaa siyaasadda noo ogol ay jiraan idin imaamayso idin si sheega waa ka ayadoo lagu wada hadiyada idin imaamayso u istaaga codkiina kor u qaada ra'yigiina banaanka la imaada kii idinku ra'yiga wata kii kale ra'yigiisa ku ixtiraamayaan lala diraya la colaadin intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado odayaasheena dhaqanka ee sharafta badan ee maanta hogaamiyaalka gogosha meesha taalo ayaga u taala annaga waxaan waas marti sharaftii la sharfay loo yeerayaan laakiin odayaasheena ayaga dhammaantood ayaga mas'uulka aaran geelnimaan lay kuma durduriyaan in waa tan hadda tahaayeen dhalinyaradiina iyo qaabkii hadda idinku durduriyeen raalli ahaansheeda yeesha annaga dhanaana raalli muxuu ah kama ahin wax adinka muxuu ah sharaftiina ikraamina wax looga dimaayo ama aflagaadaan horena umaanan aqbalin haddana ma aqbalin haddii alla yidhaha insha allah aad iyo aada u mahadsantihiin maanta waa maalin dib yaan loo laabanin gabdhaheenna intooda hore loo socdo dib u laabashada waxay ka mid tahay shalay ku mashquulidii aan sheegaynay ka mid tahay hore loo socdo wanaagga iyo mustaqbal qurxoon aan naga horeeya waxaan rabaa farqiga inuu kusoo gunaano dadkaan u sheego waayo aragnimada siyaasadeed iyo midda aqoon-yahanino leenahay waxayna tuseen dalkaani gobolkan geeska afrika la yiraahdo mustaqbalka haddii la saadaaliyo dalka ugu mustaqbal fiican waayo ugu deganaanshiya badanaanayo dadkan 20 sano oo la soo dhaafay carta laga soo bilaabay ilaa maanta ee la isdooranayay doorashooyinkii dhacay oo dhan iskuma dilin dagaal kama dhicin la iskuma laayin hal qof aad tooriyo ugu dhuftay midaa maalin muxuu ahay mid xabad uga fakatay iyo doorashadii 2016 2017 dhacday laba qofood ku dhimatay ninna tooriya lagu dilay ninna xabada ku dhacday laba qof doorashooyinkii horreeyay sidoo kale taariikhay lahaayeen waxaan rabnaa marka maxay daliil u tahay dadkaan inay aamineen nidaamka dimuqraadiga oo codka lagu kala tagaayo qofku uu xukunka saddexdii mabda ee la tilmaamay ee ahayday sifa sharci ah hoggaanka ku imaaw markaa ku timaadana sifa sharci ah ku maamul waxa lagu dhiibay markaa waqtigaagu dhammaadana sifa sharci ah uga tag ama sifa sharci ah ku joog dadkan meesha fadhiya ee dadka ka soo jeedaan iyo siyaasiyiintooda dadka sidaas aad iyo aad u aaminay oo ku soo dhaqmay oo muujiyey oo tusay Soomaali in si sifa sharci lagu yimaado lagu maamulo waqtiga markuu dhamaadana si sifa sharci oo nidaamsan oo qurux badan looga tago dadkii muujiyey waa dadka oo iska lahaa marka waxaan rabaa taariikhdaas aad leedihiin taariikh weyn waaye
dad dowladnimo iyo dimuqraadiyad lahaad leedihiin dad dhaqan lahaad leedihiin dad dowladnimada u dulqaadan og dhibaato kastoo keento ugu dulqaado ogaad tihiin laakiin waa ku soo celinaa habaar dhammaantiis dhimo ah u weyn duca dhammaanteedna dhurow waxa u weyn waxa waaye xaqa aad leedahay ha ka tanaasulin xaqa aad leedahay ha ka tanaasulin qof kale ha ku ixtiraamin sida aad ku doonayso sifa nabadeed sifa wanaagsan sifa walaaltinimo ha ahaato aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu